10 calaamadood uu leeyahay saaxiibka been abuurka ah ama feega ah ee aad u baahan tahay inaad iska ilaaliso. Waqtiga aan ku jirno hadda way adag tahay inaad kala sheegto saaxiibka wanaagsan ee dhabta ah iyo kan been abuurka ama feega ah. Sababta oo ah dadka intooda badan waxay noqdeen kuwo been abuur ah ama feeg ah oo runtii ku fiican inay qariyaan shucuurtooda dhabta ah in yar mooye. Laakiin waxaa jira tilmaamo ama calaamado lagu kala garto saaxiibka wanaagsan ee dhabta ah iyo saaxiibka been abuurka ama feega ah. Haddaba la soco muuqaalkan oo u fiirso calaamadaha soo socda ee uu leeyahay saaxiibka been abuurka ah ama feega ah oo iska ilaali marka xigta ee aad la kulanto dadka noocaas ah. Lambarka 1. Ma taageerayo aragtidaada iyo riyooyinkaaga nolosha. Saaxiibka been abuurka ah ama feega ah kuguma taageerayo riyooyinkaaga iyo hadafyadaada nolosha oo dib inuu kuu dhigo ayuu mar walba isku dayi doona. Laakiin saaxiibka wanaagsan ee dhabta ahi waa ka mar walba garabkaaga taagan ee ku taageera xaalad walba ood ku jirto. Haddii uusan kugu dhiirigelin inaad yoolalkaaga ka midha dhaliso uu taa beddelkeeda isku dayo inaad waxyaabo kale oo mico lahayn kugu mashquuliyo. Markii aad wax samee istirahdana ku dhaha waxaas waa adag yahay iyo waxyaabahan adiga oo kale ma samayn karo oo uu ku siiyo liis dheer oo ah dadka ku guuldaraystay waxa aad isku dayeyso inaad samayso oo uu kuu soo jeediyo inaadan xitaa isku dayin asaga oo ku jeesjeesaya rabitaankaaga waxaad ogaataa inaad leedahay saaxiib been abuur ah ama feeg ah ee iska jir cidda aad saaxiibka ka dhiganayso. Lambarka 2. Wuxuu inta badan ka hadlaa dadka kale ee ka maqan gadaashooda. Waa mid jecel mar walba dadka ka maqan inuu gadaashooda ka sheekeeyo marka lala joogana qof fiican iska dhiga. Haddii uu kugu ag xanto adiga saaxiibadaada kale marka aysan ag joogin ogow adigana inuu ku xamanayo marka aanad joogin markaa iska ilaali dadka noocaas ah maxaa yeelay tani waa mid ka mid ah calaamadaha ay leeyihiin saaxiibada been abuurka ah ama feega ahi. Lambarka 3. Waa danayste. Tani waa calaamad kale oo lagu garto saaxiibka been abuurka ah ama feega ah. Marka uu wax kaaga baahan yahay kaliya ayuu kula soo xidhiidhi taas beddelkeedna adu marka aad u baahato maaha mid la helo oo xujooyin badan ayuu sheegtaa si uusan kuu caawin adiga. Sidoo kale waxa uu kaa qaato ama waxyaabaha aad u qabatid ayaa ka badan inta uu adiga kuu qabto. Lambarka 4. Kuma farxo markaad guulaysato oo dhaah caan ah ayaa tiraahda. Ka digtoonow dadka aan sacabka kuu tumin marka aad guulaysato. Haddii uusan ku farxin guushaada uuna kuu sacabin markii aad guul gaadho ogow waxaad leedahay saaxiib been abuur ah ama feega ah. Saaxiibka wanaagsan waa kan ku farxa guushaada ee maaha kan iska dhiga saaxiibka haddana ka masayrsan guushaada. Lambarka 5. Marka dhibaato kugu dhacdo kaama waraysto. Haddii ay dhibaato kugu soo korodho maaha mid agtaada ka muuqda oo dhibaatada ku soo gaadhay kaa waraysta oo niyadda kuu dejiya. Laakiin maalinka ay isaga dhibaato soo gaadho waa adiga qofka ugu horreeya uu ula yimaado si aad ula xalliso dhibaatadaas asna markiisa maaha mid kuu yimaada ama ku soo waca si uu dhibaatada kuula xalliyo ama ugu yaraan kuu garab istaago. Saaxiibka dhabta ahi waa ka xaalad kasta oo jirta garabkaaga taagan ee iska ilaali dadka keliya ku jecel marka ay xaaladuhu wanaagsan yihiin. Lambarka 6. Uu kaa tagi haddii ay timaado arrin fiican uu faa'iido u arko. Waa calaamad kale oo lagu garto qofka aan ujeedkiisu ahayn saaxiibtinimo dhaba. Si aan gabasho aan lahayn ayuu ugu beddeli xiriirka saaxiibtinimo ee niga dhexeeya mid kale haddii uu arko fursad uu faa'iido ka helayo. Sidaa darteed mar walba ka digtoonow dadka boodboodka badan ee marna kaa taga marna soo laabta ayagoo fiirsanaya danahooga keliya. Lambarka 7. Sirtaada ayuu faafiyaa. Tani waa calaamad cad oo ku tusinaysa qofkaasi inuusan ahayn saaxiib run ah oo wanaagsan sida uu iska dhigayo isagu marba haddii kalsoonidaas uu jebiyo. Saaxiibka been abuurka ahi marnaba ma qiimeeyo xidhiidhkaaga danna kama laha haddii ay ku dhaawacaan ficiladiisu. Waxaa laga yaabaa inuu xitaa isku dayo inuu kugu qanciyo si lama filaan ah inuu hadalku uga dhacay ayadooy xaqiiqadu taas ka duwan tahay. Sidaas awgeed marka hore iska hubi cidda aad sirtaada la wadaagayso. Lambarka 8. Qaladaadkaaga keliya ayaa mar walba u muuqda.
wanaag kasta ood samayso maaha mid u muuqda oo mar walba diiradda wuxuu saaraa qaladaadkaaga haba yaraadee. haddii wanaag kasta nolosha aad samaysid lagama yaabo inuu sheego uu kugu dhiirigeliyo, laakiin maalinka aad qalad yar gasho qaladkaas buu kugu canaananayaa, haba noqoto mid aad qof kale ka gashay. haddii aad isaga ka gashana kaba sii daran ee markaa iska ilaali saaxiibka noocaas ah ee uu wanaagaagu u muuqan qaladkaaga mooye. lambarka 9. waa qaate laakiin asagu waxba ma bixiyo. mar walba waxaa ka go'an inuu adiga ku isticmaalo, asaguna waxba kuuma ogola. wuxuu rabaa inuu isticmaalo lacagtaada, wakhtigaaga, gaadhigaaga, dharkaaga iyo wax walba oo kale ood leedahay adigu, laakiin isagu marnaba wixiisa kuuma quudho. maalinka uu wax helo isagu maaha mid ku yaqaana oo waa mid dhuunta oon taleefanka kaa qaban si aanad ula isticmaalin wixiisa. tana waa calaamad kale oo lagu garto saaxiibka been abuurka ah ama feega ee iska ilaali. lambarka 10. ballanta ma oofiyo. haddii aad ballan wada gashaan uu kaaga baxayaa markii la gaaro ballanta isagoo cudurdaaro fara badan oo been ah kuu sheeganaya. laakiin marka aad adigu ballan aad wada gasheen fulin weydo sababo macquul ah awgeed kuma fahmo sida aad adigu u fahanto marka uu ka baxo. laakiin taasi beddelkeed uu kuu caroon oo wax weyn intuu ka dhigo ayuu asxaabtaada kale ayuu u sheegi asagoo dhahaya qofkan ballan ma yaqaano iyo warar kale oo badan. iska jir oo ogow dadka dhaqamada noocaasa leh ee aan ballanta qadarin laakiin raba ayaga in ballanta loo fuliyo markooda, kuwaas maaha saaxiibo dhab ah. haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe noo saar channelka si aad u hesho muuqaalo noocan oo kale ah oo la wadaag asxaabtaada. mahadsanid.